war degdeg ah booliska waddanka Kenya ayaa hadda gacanta ku dhigay sida ay sheegeen ninkii lagu tuhunsanaa in uu ka dambeeyay dilka saddexda gabdhood waa hooyo iyo gabadheedii iyo gabar habareer ahayd oo si arxan darro ah loogu dilay magaalada Nairobi. war farxad leh eedeysana gacan ku dhiig leh Hashim gacanta ayaa lagu dhigay waxa uu ku jiraa gacanta booliska dalka Kenya daqiiqada kadibna waxa lagu wareejin doonaa DCI-da dalka Kenya warkaasi meel looga laabanayo malahan waa xaqiiq waana war la hubo waxaana soo dhigay haatan Cabdirasaaq Xaaji Catoos bartiisa Facebook warbaahinta Kenya aad u faaqidayaan ninkaas waa la qabtay gacanta ayaana lagu hayaa hadaba sidee ayaa loo qabtay Hashim oo maalmahan la laa kiiskan waa degdeg waaran war farxad leh oo qof kasta oo Soomaali ah ka farxinayo si aan xogtan kula wadaago daawada muuqaalkan meel fog gaarsi shacabka Soomaaliyeed farxadooda ka qayb qaado ducadiinni Ilaahay waa aqbalay oo dambiilihii gacanta ayaa lagu soo dhigay laakiin muhiim ma ahan kaliya ninka in la soo qabtay waxa muhiim ah in la ogaado cid ka dambaysa iyo sababta uu dilkan u dilay saacadaha ama daqiiqadaha soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah waxa soo bixi doona war cad iyo sidoo kale sababta dilkan oo aan ilaa iyo markii ku wareersanayn sababta loo dilay horey ugu ma aan hadlin sababta dilkan loo geeyay hadaba muuqaalka meel fog gaarsiin shargalay kuna soo bir channelkan waana qofka ugu horeeyay ee soo dhigay xogtan waana xaqiiq hadaba dowladda Kenya ayaa gacanta ku dhigtay maanta waliba saacado ka hor eedeysane Hashim Degane Maxamuud ninka ay ugu qoran tahay sharcigiisa uu ku jiro dalka Kenya laakiin magaciisa saxda uu yahay Mahad hadaba waxaa laga soo qabtay magaalada Nairobi xaafad kamid ah sida aan warbixinta kooleyno warka boqolkiiba boqol faahfaahin kama bixin boolisku walina ma shaacin laakiin muuqaalkan intuu idin soo gaaray inaad arki doontaan iyo kadib inaad arki doontaan ma ogi laakiin tan waa war la hubo haddii aad aniga aaminaysan taga Facebook ee booqda barta Catoosh waxaa booqataan NTV waxaa booqataan KTV waxaa booqataan Citizen waxaasoo dhan xogta waad ka helaysaa hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah laakiin waxaan idin cadeynaa ninkaas in la qabtay oo gacanta ku jiro haddii ninkan la qabto maxaa suuragali kara waxaa suuragali kara in ay loo mid soo baxdo ninkan inuu yahay dambiilaha oo kiiskan uu isaga ku kooban yahay iyo in dad kale ay kiiskan kula jiraan warkii si fiican u dhigeyso in kiiskan uu isaga ku kooban yahay in dad kale kula jiraan inta badan Soomaalidu waxay aaminsan yihiin kiiskan in dad kula jiraan sababtoo ah ma jiro qof saddex qof ciyaar isaga dilay laakiin sababa jirta waxaa sidoo kale bari noqon doona dad badan oo kiiskan lagu tunsanaa haddii ay iyagu aysan ku jirin tusaale ahaan marwadii lala qabay haweeneydii la dilay ee Waris Daawud waxaa laga yaabaa kiiskan inay ka badbaado oo qof kasta oo ku xadgudbay oo markaasi gabadhaasi ay bari ka noqoto waxyaabaha la aaminsan yahay in mataqaanaa in kiiskan ay ku lug lahayd hadda ninkaasi DCI-da loo gudbinayaa waana la wareysanayaa saacad ka bacdina xogtoo full ah waliba mataqaanaa saacad kadib xogo waa soo tarayaan hadda ninkaas waa xaqiiq waana hubin kartaan meesha u raadi karto u raadi shacabka Soomaaliyeed ee kugu xiran ama saaxiibada kula ah ama eelkaadaan ugu farxi in gacanta lagu soo dhigay ninkii aan u rafanaynin oo u dadaalaynin soo qabashadiisa Allah subhanahu wa ta'ala waa noo guuleeyay ducadiinana Rabbi waa noo aqbala sidoo kale waxaan rabaa inaan kula wadaago xogta gabadhii xalay lagu weeraray magaalada Nairobi shalay darada aan iraahday ee xalay muuqaalkeedu baraha bulshada qabsada oo ilaa xalay aan si fiican uga hadalnay oo iyadoo nin dilaayo la soo bandhigay hadaba gabadhaas sababta loo dilay maxay ahayd xagee ku dambeysay ninkii maxaa ku dhacay ninkii gabadhaasi dilaayo wuxuu ahaa nin ay keensatay gabadha shaqaalaha guriga ah waxayna rabeen hantida guriga taala inay dhacaan qorsho horta intaas oo ahaa gabadhiina warar waxaa jira suuq soo galay gabadhiina 16 qod laga tolay laakiin xogtaas anaga ma xaqiijin karno laakiin gabadhaas in la dilay oo isbitaal ay xalad ku heeyta oo saakin laga soo bixiyay warka ma hayno sababtoo ah kiiska Hashim maanta ku maqneen oo aan baaris ku haynay waana soo xaqiijinay in gacanta lagu hayo alxamdulillah okay markiiba dhacday daraaday ahayd kooda bisha ay wax dhacayeen booliska ayaa la wadaagay isla markiiba ninka wajigiisa waa la aqoonsaday gabadha shaqaalahana waa la aqoonsaday gacanta ayaa lagu soo dhigay labadoodana waa la hayaa waxayna qaateen hanti fara badan oo dahab iyo lacag isugu jirta oo ay ka jabsadeen qaanadaha hooyadii lahayd gurigaasi marka waxaan rabaa hal arrin inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dumarka carruurtooda u degan yihiin magaalada Nairobi
in la iska dhaafo islaamahan madowga ah ee la aaminayo ee caruurta looga tagayo. Caruurtiina ilaashada. Kenya xaalkeedu waa cakiran yahay, xubnaha muhiimka ah bini'aadamka la iskaga baxa, waa la isdhacayaa. Xaalka Kenya faraha ayuu ka baxay. Fadlan ilmahaada adigu hayso. Haddii aad shaqada aadayna walaasha keenso qof Soomaali ah oo xitaa Soomaali kale aaminin. Walaasha ama walaalka ama ilmaha waalidkood keenso qof ehelka oo aan wax dhibaato samayn karin, ilmahaada u keenso. Kenya waxyaabaha ka dhacay xisaab ma lahan. Macnaha dhowr dhacdo aan inta xogahan ku jirna ogaan. Waxaa ka mid ah in caruurtan daycare-ka waxyaabaha la yiraahdo ciyaalka yarka meelaha la geeyo in haweeney heesta la soo xiray asbuucyo ka hor iyadoo lagu arkay kiis weyn iyadoo ku jirta. Caruurta meesha ku jirta waxaa la yiraahdaa caruur Soomaaliyeed u badneed. Kenya waa lagu dhacayaa, waa lagu dilaa, xubintaada muhiimka ah waa la qaadanayaa, hantidaadana waa la qaadanaya. Waxyaabaha kale oo lagu sameeyaan kuu sheegaa caruurtan waxay ku jireen daycare. Inaan muuqaal gooni uga hadlan waa rajayna hadduu Ilaahay yiraahdo waana soo diyaari doonaa, si fiican waa soo diyaari doonaa. Okay, marka maamadu waxay sameynaysaa ciyaalka soolka meesha maadaama ay ka eed manager waxay sameynaysaa ciyaalka yaryarka ah oo 2 jirka 3 jirka oo waxba nin iyo naag aan ka aqoonin waxay leedahay hal isfuulo hal ishabeeye leedahay ma fahant. Marka kabacdi muuqaal ay ka duubaysaa waxay u diraysaa qolo cadaan oo dhiil ay la soo xirat. Markaas waxaa la soo gelinayaa baraha lagu soo gudbiyo waxyaabaha anshuxmada sida galmada iyo waxyaabaha lamid ah. cunug yar oo 2 jir iyo cunug 2 jir oo wax aan jirin isku sameynaayo ayadu intii isqabatay isa saareeyo ay leedahay hal isfarsameeyo. Marka wadankeena inta ka soo tagnay ama Yurub ka soo cararnaa wadankan waxaan u soo raadsanaynaa nabad iyo in ciyaalkeena aan ku barbaarin waxyaabaha noocaas diin aan ku barno, laakiin dhaqanna waa nooga lumay. Dadna mataqaanaa waa lagu laaynayaa, hantidaadii waa lagu dhacayaa, adiga waa lagu afduumanaa. Yacni meel 100% Soomaaliya ka fiican 100% Soomaaliya qaraxa ku dhimanaa haddii Ilaahay ka badbaadiyo nasiibka macnaha, laakiin tan sumcadaadina waa ku dhimanay, hantidaadii waa mataqaanaa ku baaba'e. Meel lagu noolaado Kenya ma ahan haddii sidan wax laga bedel. Ugu dambeyn hadda warka farxadda wuxuu yahay in Hashim gacanta lagu hayo, waana newska aan idin soo orday oo aan rabay inkaas wax xaqiijiyo kadib idin la wadaag. Anoo hawsha ku jiro oo niman Soomaali aan ahayn xogtan ka dalacanayay oo xaqiiqadaas ku jiro. Atoosh ayaa noo cadeeyay oo ah nin 2 milyan iyo haya ku xiranta Soomaali ah oo 100% warkiisa lagu kalsoon yahay. Sidoo kale warbaahinta Kenya aad ay warkaan u qoraysaa, laakiin warka la raadinaya ayaa wuxuu yahay sababta dilkan u geystay in la helo. Insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdana waa soo baarina ayadana waa ku jirnaa. Qofka ugu horeeya ee xogtaas helay waa adiga. Insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo qaabka loo qabtana sidoo kale waa ka soo hadlaynaa iyo goobta lagu qabtay iyo cidda fududeysay. Waxaasoo dhan warbixintoodan kula wadaagaya, laakiin ku laab qabowso intaan ku sii deg ku sii seexo asriirada ku sii cab. Hashim gacanta lagu hayaa, ninka gabdhaheena laayay, dilay, xasuuqay, kufsaday, jarjaray, waliba cad ugu tuuray qaybo kamid ah magaalada Nairobi. Insha Allah isna dhawaan inta maxkamad la geeyo laga hadashiyo dadka kula jira kiiskan oo soo qabto gabadha dumarka ah ee maqan ee ilaa iyo inta uu gaaray Machakos la socotay inuu noo keeno. Ragga kale oo maqan oo baxsadka ah oo isaga kiis kula jira sheego, sababta uu dilo sheego, isna inta maxkamad la geeyo waajibkiisa oo laan Kenya la isku tooganin waajibkiisa laga waraabiyaan hadduu Ilaahay yiraahdo. Aan Ilaahay ka rajaynaa gabdhaheena Ilaahay nooga naxariisto. wax kale oo mataqaana saaka cabsi walwal neeysan malahan in ninka gabdhaheena la si raaxala oo Nairobi u dhex raaxaysto ayaa noo darnay ayadan ka carareynay. laakiin hadda gudaha magaalada Nairobi ayaa ninkaas laga qabtay waana uu xiran yahay. wixii ka soo kordhana hadduu Ilaahay yiraahdo hal door media team ah ugu horeeyo dadka daawado. waana maasantiin muuqaalkan fadlan meel sare gaarsiiya, share iyo like ila dhac waa kaas.